waxaan rabay bal inaan xogaa yar kaala sheekaysano intaan gowraabada aadan dardaaranka noo gelin. bandhigu hadafkiisu waa kobcinta akhriska iyo qoraalka iyo aqoonta iyo buugaagta iyo hiddaha iyo dhaqanka. qowmiyadda Soomaaliyeed dacallada adduunka meeshay ka joogtaba inay iyadu istaqaano, mustaqbalkeeda taqaano, waxay soo martay taqaano, waxay ku bilaamataa tacliim, inay wax akhriso, berritana ay wax ka sheegi karto oo darasi karto waxa soo socda, maantana ay garan karto. innagoo taa ka ambaqaadayna dadku inta badan su-aalahay soo weydiiyeen inaan anigu ku weydiiyo oon kula qaybsado waxaa kow ka ahayd waxaad ra-iisul wasaaraha noo weydiisaa haddadan la joogo ma uu jiraa buug uu hadda akhriyo akhriskiisu weli uu u socdo, canwaankiisa iyo wuxuu ku saabsan yahay iyo wixii macluumaad oo kale nooga sheegi karto waan soo dhaweyn lahayn. marka hore waa ku mahad celinayaa diini. waxaa halkan ka muuqata wejiyo dhallinyaro ah. markii dhallinyaradaas iyo maskaxdaas la isku daro wanaag badan baa ka muuqda. marka adiga iyo inta kula soo qaban qaabisay iyo dhammaan dadka ka soo qayb galay dhallinyarada rag iyo dumar waa idin soo dhaweynaya, waa mahadsantiin marka ugu horeysa. marka labaad hadda buugga aan akhriyo nasiib darro buug af soomaali ku qoran ma aha, waa buug af qalaad ku qoran. waxaana laga qoray ninka hadda ra-iisul wasaaraha ka ah Malaysia oo la yidhaahdo Mahathir Mohamad. buuggaasi waa buug u qoran si ka duwan buugagta oo waxa uu ka hadlayaa ama waxaa koobi laga soo qaaday warqad walba oo uu u diray qof madaxa intuu ra-iisul wasaaraha ahay, hadda intaanu ku soo noqon ka hor, oo dal walba oo dunida warqaddii uu qoray. sababta aan u akhriyana waxa ay tahay keliya inaan wax ka barto. waa maasanta wasaare barisamaadkii waagii Soomaaliya sidan si ka duwan ay u ekayd, loona ekaan doono insha allah. waagii maktabaddii qaranka ay shaqaynaysay oo goortaad rabto aada inta tagto aada buug soo akhrisato, tiyaatarka goortaad rabto habeen saq dhexe iyo subax aada aadi karto, madbacaddii qaranka ay shaqaysay, madxafkii qaranka u shaqeeyey, tiyaatarka iyo maktabadda qaranku waatay iska soo horjeedaan. waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyey waagii aada dhallinyarta ahayd ma waxaad u badnayd kooxda tiyaatarka aan ka bixin mase librarigaad u badnayd kuwa wax akhriya? waagii aan dhallinyarada ahaa, haddii aan dhallinyarada runta u sheego, waxaan u badnaa dhinaca tiyaatarka. marka waxaan ka mid ahaa dhallinyaradii safka dheer u geli jirtay tiyaatarka. degmooyinka riwaayadaha lagu dhigana wiilashii yaryaraayoo geedaha fuuli jiray, ama riwaayadaha degmooyinka ku geli jiray, tiyaatarkana riwaayad walba cusub gasha. laakiin aniga arday halkan wax ku soo bartay aan ahay, runtii waa tegi jiray maktabadda qaranka. maalin dhoweedna waa tegey. waxaan isu barbar dhigay marka waagii aan dhallinyarada ahaa siday ahayd iyo hadda sida ay tahay, taasoo ku xasuusinaysa buugagtii waagaa taallay iyadu siday ahayd, dadkii joogay sidii naloo hagi jiray iyo sida ay u burburtay ama dhaawaca gaaray intii uu la ekaaday. marka waxyaabaha aan rabno hadda oo aan gobolka banaadir iyo annagu ka wada shaqaynayno, maalin dhoweed waana abwaaniinta Soomaaliyeed la hadlana aan ka wada hadalnay, waxaa ka mid ah sidii aan bal tiyaatarkeenni annagu si isxilqaan ah oo dawladdu qayb ka tahan dib ugu dhisan lahayn, maktabaddii sidaas oo kale. marka waa runtii waxaa jirtay waxaan hadda aada curinaysaan dalku uu lahaa, laakiin nasiib darro ku dhowaad 30 sano waxbaa naga burburay. marka waxaan rajaynayaa inaan mar dhow dib u soo noolayn doono, idinkuna dadaalka aada wadaan waad ku mahadsantihiin. maasha allah, waad mahadsan tahay.
waxaad soo martay waayo badan waxaad hadda tahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xayaatadu maalinba meel ayay soo istaagaysa aabbaa tahay walaal baa tahay bani aadan baa taha madax ka sokow khibrooyinka faraha badan adduunkaad la dhaqanto maalin walba ma ku tala jirtaa maalin un buug inaad ka qorto waxa maalin walba dharaar iyo habeenba aada la kulanto ama soomaaliya gudaheeda ama caalamka kaleba waa mahadsantaa horta hadda waktigan xaadirka waxaan ka shaqeeyaa inaan u adeego qaranka soomaaliyeed waxyaabaha aan ka shaqeeyana waxaa ugu badan runtii inaan dadka soomaaliyeed la hadlo una sheego waxa aan soo marnay sida looga bixi karo caqabadaha na hortaagan cid walba waxa uga aadan macnaheedu waxay tahay waxaan isku dayaa mar walba dadka soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada inaan ula hadlo si ka duwan sidii hore oo loola hadli jiray hadalku wax tari maayo waa in shaqana lagu daraa marka waxaan u adeegnaa qaranka markii haddii ilaa yidhaahdo aniga dhallinyaradu ay nagala wareegaan shaqada aan hayno mustaqbalka oo ah sida aan rajeynayno haddana waxay xaq noogu lahaan doonaan khibradda aan soo marnay inaan u reebno marka haddii ilaa yidhaahdo waa ka fikiri doonaa laakiin waa wakti aan hadda la gaarin haddii ilaa yidhahdo maasha allah waad mahadsan tahay murtida iyo hal abuurka iyo suugaanta wax gooni ku xiisa geliya ma jiraan ma gabay ma geeraar ma buraanbur ma hees ma shirib ma dhaanto ma wax aad si gooniya u xiisayso oo ama aada akhriskiisa badiso amaba marmar adiga laftarkaaga aad ku tuurato ma jiraan mar haddii aan ku idhi waxaan u badnaa jiray tiyaatarka macnaheedu waxay tahay riwaayadahan aada u geli jiray riwaayaduhuna waxay lahaayeen waagaas qaab gooni oo loo sameeyo heesuhu waxay lahaayeen wasni iyo qaafiyad waxay ka turjumi jireen taariikh iyo aragti ku salaysan xaaladda dalka iyo mustaqbalka sidaas daraaddeed suugaantu maadaama dadka soomaaliyeed ay ahaayeen yihiinna weli dad aada wax u coriya qof walboo soomaaliyeed oo raba inuu dalkiisa wax ka ogaado ama dhaqankiisa wax ka ogaado waa inuu suugaanta og yahay marka waa inaad midhaha heesaha aada fahmi kartid inaad gabayada akhrin kartid inaad geeraarka iyo guurowga akhrin kartid marka suugaantu sideedaba xiisay leedahay tan kale annagu waxaan nahay dad soomaaliyeed luqadeennu waa af soomaali isagaan wax ku qornaa ku akhrinaa meesha ugu wanaagsan oo luqadaada qof ahaan aada ku naaxin kartidna waa suugaanta marka anigu suugaanta ama heesaha ha ahaato ama gabayada ha ahaato ama suugaanta la qoro ha ahaato intaba aada baan u xiiseeyaa wakti markaan u helana buwaagta ama gabayada ama waxyaabaha kale waan akhristaa